laakiin markii uu dhadhamiyey si aan caadi ahayn ayuu u jeclaaday, wejiga ayuu la galay saxankii wuxuuna leefay wixii ku jiray oo dhan. kadib wuxuu soo qaatay gasaco badan oo cunto ah wuxuuna ku guray khaanada miiskiisa si uu gadaal uga cuno. Maalmihii xigay yeeygii wuxuu noqday shaqaale aad u dadaala. wuxuu joojiyey fikradii ahayd inuu idaha cuno wuxuuna saaxiib la noqday shaqaalaha kale isaga oo qaadanaya mushaarkiisii ugu horreeyey si uu ugu mahadceliyo idaha sida fiican u soo dhoweeyey iyo daryeelkooda. wuxuu u keenay khudaar macaan. noloshu aad ayay u fiicnayd muddo kooban. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu furay khaanadii balse wuxuu naxdin ku arkay in cuntadii eeyaha ay ka dhammaatay. jikada ayuu u cararay laakiin halkaasna waxba kama uusan helin. gaajo daran ayaa qabatay, dabeecaddiisii dhabta ahaydna way soo laabatay. wuxuu bilaabay inuu dadka u arko sida hilib duban oo kale isaga oo si gaar ah u eeganaya saaxiibadiisa shaqada si uusan dhibaato u geysan. wuxuu isku dayay inuu naftiisa xakameeyo. wuxuu u cararay wiishka si uu goobta uga baxsado inta uusan cidna weerarin. nasiib darro, koox ido ah ayaa wiishka soo galay. markii uu wiishku xirmay wuxuu wada cunay dhammaan idihii. maamulihii markii uu albaabka furay waxaa muuqatay in meesha la isku cunay oo uu xaalad xun abuuray yeeyga. maadaama la ogaaday in uu yahay yeey, maamulihii go'aan ayuu ku gaaray in laga eriyo shaqada. ugu dambayntiina wuxuu ku soo laabtay shaqadiisii hore ee ahayd tirtiridda muraayadaha.